example kale oo aan ku raadinayno derivative-ka product function ayaan qorayaa si aan u ogaano habka loo isticmaalo product rule-ka. Function-kan ayaan haysanaa waad aragtiin oo ka kooban y is equals to in bracket x squared plus 1 times function-kan kale x plus 5 plus 1 all over x. Marka waa product function waana la ka rabo inaan raadino derivative-kiisa. Marka derivative-kiisa aan ka rabo marka waxaan isticmaalaynaa product rule. midkanan derivative-kiisa aan raadinaynaa kan sidiisaan u daynaynaa oo kanaan ku dhufanaynaa derivative-kiisa kadibna waxaan ku daraynaa kan oo lagu dhuftay derivative-ka kan. Marka waxay noqonaysaa y prime in ay la mid tahay kanaan soo qaadanaynaa marka koobaad x plus 5 plus 1 all over x plus 1 all over x kadibna waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka midkan kale d all over dx midkan derivative-kiisa x squared plus 1 x squared plus 1 markii kadibna waxaan samaynaynaa midkanaan soo qaadanaynaa sidiisa x squared plus 1 kadibna waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka d all over dx-ga midkan x plus 5 plus 1 all over x. Markaas waxaan samaynay waxaa weeyaan markii koobaad kan sidiisa ayaan kusoo qaadanay waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka midkan marka midkan waa first step midkan sidiisaan u daynaynaa kan ayaan derivative-kiisa raadinaynaa marka waxaan ku dhufanaynaa kanoo sidiisa waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka kan kadib waxaan soo qaadanaynaa kan sidiisa ayaan usoo qaadanaynaa kan derivative-kiisa ayaan raadinaynaa kadibna waan isku dhufanaynaa. Marka sidaas ayaan samaynaynaa product rule. Marka kan sidiisa ayaan kusoo qaadanaynaa marka waxay noqonaysaa x plus 5 plus 1 all over x kan sidiisaan kusoo qaadanaynaa kan derivative-kiisa ayaan raadinaynaa marka waxay noqonaysaa derivative-kiisa waa iska 2x derivative-kiisa waa iska 2x midkaas saasaan ku keennay kan sidiisa ayaan kusoo qaadanaynaa waxaa weeyaan waa x squared plus 1 kan derivative-kiisa ayaan raadinaynaa waxaa weeyaan derivative-kiisu waa 1 plus derivative-ka constant waa iska 0 derivative-ka 1 all over x-na waxaa weeyaan waa minus 1 all over x waa minus 1 all over x squared. derivative-ka midkan 1 all over x waxayna siinaysaa minus 1 all over x squared because derivative-ka haddaan raadino haddaan idin tuso habkan u raadin karno waxay noqonaysaa derivative-ka d all over dx of 1 all over x waxaa weeyaan waxay la mid tahay derivative-ka d all over dx of x raised to power negative 1 marka 1 all over x waxaan u qori karnaa sidatan marka negative 1 kana soo dejinaynaa waxaan ku dhufanaynaa x-ga marka waxayna siinaysaa negative x negative 1 ka markaan soo dejino x ku dhufan negative x ayna siinaysaa negative 1 ka haddaan halka sii jarano waxayna siinaysaa negative 2 power-ka haddaan halka sii jarano waxayna siinaysaa negative 2 midkan waxaa loo qori karaa minus 1 all over x squared waana midkan hadda aan kor ku qoray. Marka midda waa iska for your information weeyaan. Marka hadda waxaan haysanaa
derivative-ka function-keena. Derivative-ka function-keena hadda sida tan ay soo baxayd waxaan ka rabaa keliya inaan simplify garayno. Marka 2x ayaan ku dhufanaynaa function-kan. 2x haddaan ku dhufano function-kan waxayna siinaysaa 2x x haddaan ku dhufano waa iska 2x squared. 2x haddaan ku dhufano 5 waxayna siinaysaa plus 10x. 2x haddaan ku dhufano 1 all over x waa iska 2. labada x ay isla baxayaan. Marka midkan waa diyaar, midkan hadda u gudbaynaa. midkan x squared haddaan hal ku dhufano waa iska x squared. x squared haddii aan ku dhufano minus 1 all over x squared waxayna siinaysaa x squared haddaan ku dhufano times minus 1 all over x squared waxayna siinaysaa 1 keliya negative 1 ayna siinaysaa because x tan iyo x tan isla baxayn, x squared iyo x squared isla baxayn. Marka kadib 1 kana waxaan ku dhufanaynaa 1 kan waa iska 1 kana ayaan ku dhufanaynaa minus 1 all over x squared waxayna siinaysaa minus 1 all over x squared. Marka hadda waan expand garayna keliya waxaan oo dhiman keliya inaan sii simplify garayno. Marka dhankan sida tan aan ku haysanaa 2x squared plus 10x plus 2 ayaan ku haynaa. dhankanna maxaan ku haynaa? dhankanna waxaan ku haysanaa x squared minus 1 plus 1 way isla baxayn waa iska 0 minus 1 all over x squared. soo ma aragteen? marka hadda waxaa noo soo haray 2x squared kan sideedan usoo qaadanaynaa. Okay, 2x squared plus x squared waxayna x squared kana waan soo qaadaya marka waxayna siinaysaa 2x squared plus x squared plus 10x tanaan ku xijinaya plus 10x plus 2 minus 1 all over x squared. marka hadda wixii leg times ah waan isku daraynaa 2x squared iyo x squared haddaan isku darno waa 3x squared plus 10x plus 2 minus 1 all over x squared. marka derivative-ka function-keeni aad aragteen oona la dhahay raadiyo waxaa weeyaan waa ka function-keena kana aragteen oo product ah. product function-kana derivative-kiisa waan keennay annagoo isticmaalayna product rule. Okay.